saaxiibayaal dhibaatooyinka ugu waaweyn ee wadanka ka dhaca waxa kamid ah wali waxa socda xadgudubka loo geysto dumarka iyo dadka kale ee nugul ee Soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago qiso xanuun badan oo aan jecelahay bal inta dhageysato inay dareento qisadaas waxay ka hadlaysaa gabar yar oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo ku noolayd magaalada Muqdisho oo sida ay noo sheegi doonto ka warrami doonto dhibaatadii ka soo gaartay ama uu geystay ninkeedii oo hore u qabi jiray oo ay sheegtay in markii uu ka dalbaday inay isku noqdaan ay ka diiday uu sababay inuu markaasi gacan u qaado oo uu rasaas ku furo taas way ka badbaaday laakiin wali waxay la nooshahay xanuunka iyo dhibaatada ka soo gaartay wixii dhacay Amal Maxamed Maxamuud waxay kaloo dhibano u tahay dhibaatooyinka ka dhacay wadanka oo ay kamid tahay qaraxyada dalka ka dhaco waxay horay ugu weysay dhibaatooyinka wadanka ka jira hooyadeed waxaan jecelahay bal inaan idin la wadaago qisada Amal oo ay iyada afkeeda nooga sheekayso wixii soo maray marka la eego xaaladda guud ee wadanka waxa la qiyaasaa in Soomaalidu ay saddex xaaladood ay ku sugan yihiin oo lagu sheegay inay tahay saddex qolo oo dhibanayaal qolada koobaad oo ah dhibanaha koobaad waa qofka ku dhintay dagaaladii sokeeye ama dhibaatooyinka qaraxyada iyo argagixisada ah ee ka dhacay wadanka Soomaaliya dhibanaha labaad waxa lagu sheegaa qof dhaawac ka soo gaaray laakiin ka badbaaday weligiina la nool dhibaatadii ka soo gaartay wadanka dhibanaha saddexaadna waa qof jir ahaan caafimaad qaba laakiin maskax ahaan dhibaatada ka dhacday wadanka ay saameyn ku yeelatay Amal Maxamed Maxamuud ayaan kula kulmay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga oo aan ku suganahay waxaan bal ka wareysanayaa xaaladeeda Amal waa ka xumahay dhibka ku gaaray ilaahina ku dhib yareeyo laakiin bal marka hore waxaan nooga warantaa sidee waxaan kugu dhaceen maxaa nooga sheegi kartaa dhibka ku gaaray والله ما كميدا horto dhibkan waxa ii geystay waa ninkii qabay aan la soo dhaqmay hadana kadib calafna kala geeyay markii dambana oolaadan u dhalay markaan u dhalay oo muddo yar aan joogo oo idahayaan isku noqono markaan ka diidana wuxuu dhahay ama waa igu noqonaysaa ama cunugeyga siinay ama waa ku dilaa saddexdaas wax ka dhaxeeya ma lahan marka oolaadad u dhashay waa hal cunug miya hal wiil aan hayaa hay maxaa keenay marka hore furinkeena waa isku dhacnay waan kala tagnay marka ku noqoshada maxaa sabab marka inuu ku yiraahdo waa isku noqonaynaa markii koowaad wuxuu dhahay horta cunug markaan dhalay wuxuu dhahay waan isku noqonaynaa kadib waan ka diiday ilaa wuxuu dhahay markii dambe xooga cunuga iga markuu aan ka diiday wuu iga aamusay cunuga iga xanuunsaday istaalaan la galay istaalka markaan la galay saddex maalin markaan ku jiro gabar habartay la joogtay habay dhaaday marka reerkiisa u sheeg wiilka yaray naqasa ku dhagaya cunuga markaas waa wacay waa u sheegay wuxuu dhahay cunuga iikan oo kuugu tufaa anaa ii diiday anaa iga qarsatay waayahan dhahay waan soo baxay waxaan kula jira marka istaalka soos la dhahayo waan soo baxay meeshii madaxtooyada ugu imaaday meeshii shaqada waa u geeyay cunugii markaan irida aan istaagnay oo soo baxay banaanka u soo baxay cunuga qabsaday oo gudihii hore u la galay marka anina hooyo cunugeeda iska keentay ma ahaynin waan ka calool xumooday meesha taliyaala joogay gudaha hore u gudbay marka meesha waa la iga yaqaanay oo hore u joogi jiray oo ninka meesha ka shaqeynayay markii hore aan u gudbay oo hore aan u galay taliyaashii aan arkay waxaan dhahay cunugii iga soo qaatay iikan waa kuugu tufaa way dhahay cunuga marka waa lala hadlay waxaa la dhahay cunugeeda si uu ii soo tuurto dhahay cunuga waxaa la dhahay gabadha cunugeeda ku soo tuurtay meel ka soo daba ordaynay si cunugeeda sidii cunuga igu soo siiyay wuu soo raaxo dhahay bajaajan saara oo soo baxnay barti gaari laga raacay marka imaan qorog ugu qabtay hadana wuxuu dhahay dhig cunuga ama madaxaaga u maqan saas miyaa dhahay ha cunuga waa u dhigay waa ka tagay xaafadeedii aan tagay waa dacweeyay ilaa heer maxkamadda isla kornay 2 maalin 2 habeen xabsi ku jiray marka xabsiga laga soo daayay oo galabti cunug maalin sabti iga qaatay sabtiga markuu iga qaatay isbuuc iga maqnaa isbuuci dambe maalinta ahayd oo sagaalaad aan la soo waxa la cunugaaga soo doono cunug sida la igu soo siiyay asna sida xabsiga loogu soo daayay isla markii uu soo wacay anaa bi xireysaa miya anaa diideysaa miya ilaa isku noqonayna saas miya dhahay maba ku aqaanay cunugaagan shala meel cada iga qaadatay anina meesha waxa meesha kaaga soo tagaa marka hore yaalaan mac salaam dilna ilaa wax dilo wax noolay sidii anagu ku kala aamusneen
maalinkii dambe oo soonkii dhamaadkiisii wuu ila soo hadlay wuu ila hadlay wuxuu dhahay cunuga dhar iidan ku siinaa soo doono dharkaas iida waayahaan dhahay marka habeenkii markaan wada hadalnay xoogaa waa heshiinay laakiin kumaan heshiin inaan isku laabano caadi u heshiinay cunugeygana inuu dhar iigu soo gado marka gaariga soo raacay gaarigu meesha ugu balamiyay intaana gaarin anaa haystay cunugeyga waxaad noo sheegtay cunuga in maxkamadan kusoo kala qaadanay maxkamadan ku siisay adiga maxkamadan ku siiyay markaan soo kala tagnay kadib uu ila hadlay uu dhahay anima xabsi igeeneeda anima way dacweyneeda ilaa ama cunugeyga isiine ama waa isku noqonayna ama waa ku dilaawo saas miyaan dhahay cunugaagii insha Allah meel cada iga qaadatay anina meesh waxa kaaga soo tagaa meesha yaalaan dilna ilaa wax dilo wax noole iga leexo marka telefoon uu soo wacay marar badan waa ku dhageystay misada uu soo diray maan uga jawaabin habeenkiis oo maalinta dhaawacmay habeenkeedii aan isla hadalnay waxaan ku heshiinay micnaha inuu cunugeyga dhar ii siinayo aan ka doonanayo laakiin isku noqosho kuma aanaysiinin markii aan soo baxay maalintaas aan soo baxana gaarigu saarnaa soo raacay bartoon aan ku balansaneen maana gaarin aniga asaga gaariga markaan soo raacay in shareera xirnaa telefoon ku hadlaay kursi igu horeeyo saarnaa maana ogeyn ani uu soo jeesto uu arkay anna waa arkay uu islaamay waa ka qaaday salaan seeto dhaawaan fiicanahay alxamdulillah markaa kadib uu iga sii jeestay meesha maxaa telefoonka soo dhacay telefoonka markaan aan ku hadlaayo oo wax yar daqiiqad yar aan ku hadlaayo waxa arkay ninka inta soo jeestay oo qoragii intii uu la qabtay waa kula dhigo qoragii marka saantay aan dhahan xabadaha waa ugu yaalaan baas uu qabtay gaari caasiya saarnaa gaarigii ummadii idil way iga daateen aniga asibisa ku soo harnay marka meesha jackpointia u dhawaay qofkii horta markaas iga badbaadiyay ma aqoonsan karo wajigiisa laakiin inuu askari ahaa oo nin rag ahaa codkiisa waan ka dareemayay oo qofkaas iga qabtay kadib istaalka la igeeyay asine markaas oo qoroga ugu la dhagaya dhaawac gaaray saa maqlay oo xabadaha igu furay waxay uga dhacday asaguna ku dhacday lugta meelahaana uga dhacday marka istaalka aan la igeeyaa dhinaciis laga geeyay marka wuxuu ku jawaabay xaaskeyga ahayd xabada ulama aan dan lahayn waa iga fakatay xabadii marka maalintaas kuwan oo madaxtooyada oo taliyaasha meesha ay way ogaayeen marka hore inuu saas yeelay ninka oo maxkamadna cunugeela iga soo qaaday marka waxa leeyahay waxa uu tala gashay soo bax ninka waa la wada xabsiga la geeyay markii dambana waa la soo daayay iiran iga la tashanina muxuu ka qaban jiray marka madaxtooyada mise wali wax buu ka qabtaa wali wax buu ka qabtaa wali hadda dii la soo daayay maqle shaqadiisu hore u galay uu shaqaysanaya yaa soo daayay reerka aan soo daayeen oo isla hadleen aan soo daayay marka markii uu dhaawac ku gaarsiiyay waa la xiray hal sano xirnaa maxkamad iyo cadaalad ma tagtay ma tageen maxkamad iyo cadaalad waxa maana tageen markii ugu dambeysay oo la soo deenayay ani waxa lagu qasbay in aan warqad soo saxiixo oo la warqad saxiixo warqad oo sii deenay ninkaas yaa ku qasbay horta qofka waalidkii ahaa waa aabahay waxa ma dhihi karo laakiin aabo xoogaa uu xanuunsan yahay marka sii daayaa leedahay ilaa hayaan dhahay fasax oo liigu qasbay raali kamaana ahayn markaan sii deenay ninkaas maxay tahay sharciga adiga kugu qasbay inaad saxiixdo oo aabaha wax u saxiixi waay waalidkay hadduu ku dhahayo ama aan ku duceena ama aan ku inkaara ducada qaadanaysa marka aan ducadii aan qaatay oo sidaas ku sii daayay ninkii waay marka waxaad iga sheekaysaa meeqa jir aad ninkan isku guursateen daadan waa imisa 15 sano jira markaan guursanayay yaa ku guuriyay aniga keensaday ninka waalidka u keentay waa liigu daray waay hadda meeqa jir aad tahay had 18 sano jira 15 sano ku guursaday madaxtooyada marka shaqadiisa maxay ahayd waardiyo ahaa ilaaliyaha madaxtooyada ka tirsan oo ahaa askari dawladeed waa ahaa ilaa haddana uu yahay way dad hore u dhibaato u gaarsiimay jirtay
maana maqlin hore kumaana maqlin balse hadda anoo maanta gaarsiiya marka asagoo ku dhaawacay hadda dowladda u shaqeeya oo madaxtooyada ilaaliya dowladda u shaqeeya wali madaxtooyada u ilaaliya madaxweynaha ku sugan oo ilaalada madaxweynaha ilaaliyaha madaxweynaha oo kamid yahay waaye madaxweynaha markuu baxayo uu raacaa baabuurta raacdo oo alborkeedu kamid yahay oo kasoo laabato waay marka bal kulay waa baari doona laakiin ma fahmi karno nin sidaa u dhaqmaya oo dhibaatada ku geystay inuu lagu aamino amaanka madaxweynaha sax taas ayaaba wax kala ah laakiin waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo marka see marka xalka ku dambeeyay markii dhibku ku gaaray wallaahi rafaad badan waan soo maray reerkeyga igu dadaalay inkastoo markii dambe tabar ay u dheeriday 3 bilood horta istaal keesanay waa maqashaa maleena istaalkaas aan 3 bilood aan waxba aan helin lugteedana dhacaamaysay 3daas bilood marka waxa la ii raadinayay istaal oo daaweyn karo macnaha wax la iigu qaban karo hadda marka mid oo Soomaali Suudaanis ay dhahayaan kaasa wuxuu dhahay lugta waxaan ka soo saarayaa lugtaagan calashaan oo ku soo canaysid marka alxamdulillah 7 qaliin aan maray oo mar walba marka 2 bilood marka joogo qaliin aan galay hadda markii igu dambeeyay soonkii hadda waxa la dhahay socda la ii bilaabay marka 2 isbuuc camal aan soconayo lugta qoyaan iga kala wayga barartay markaas aan liigay dhakhtarka lagu celiyay 2 qaliina soonka kadib aan maray oo marna qoyaanka la iga bixinay marna birna iga bixinay igu jirtay way bardamba marka ma kulanteen ninkii dhibka ku gaarsiiyay ma kulmin mana isoo wicin mana ana arkan reerkiisa xataa markii xabsiga laga daayay ay igu dambeysay seeta xataa iga xataa ima soo dhihin way marka ninka wad cafisay seed ku cafisay wallahi horta waxaan ku cafiyay mid koowaad shala horta waa la igu qasbay ana cafiskii koo aan sii deenay mid aniga oo qalbigay ka soo go'day meesha ahaanin tan hadda waalidkii waxa tii haddana waxay ahayd horta gudoomiyaheena shalay markii aan u tagay oo wuxuu ahaay maaliyadda gudoomiyaha gobolka Banaadir waaye Ibrahim Dheere maxaa soo galay qadiyada aniga u tagay oo maama Jawaahir ay geeday oo ay dhahday wuxuu ahaay taana ku caawinayo sida gobolka liigu geeyay gudoomiyaha ila kulansiisay codsiga u gudbistay dhibaatada si ugu dhacdo aan u sheegay marka wuxuu dhahay sharciga la horkeenayo gudoomiyaha hayi waxaan dhahay fiisiyo ii soo saaray tikidkii ii dalbe baasaboorku ii sameeyay lacag pocket money uu ii siiyay marka wax badan oo ii qabtay habeenkii maalintii igu dambeysay habeenkeedan soo baxay wuxuu dhahay amalay iska cafininka waayaan dhahay marka gudoomiye waayo qofka haduu wax ku qabtay iska cafiga muxuu la jeeday ma niyad wanaag uu la jeeday oo macnaha dawladeeda wax ii qabatay hay'ado sida ku cafiyo dhahay amalay dawladda wax ii qabatay dheh marka ninka sidaas oo ku cafiyo dheh hayi waayaan dhahay marka waxa is dhahay qof ku dhahay dartiisa ha u cafinin ilaahay dartiis u cafi sidaas aan ku cafiyo hadana waxba uma qabo maxay tahay marka sababta laakiin gudoomiyaha ku xigeenka gobolka maaliyadda maxaa ka dhaxeeya ninka wax ku gaarsiiyay isaga wuxuu ku leeyahay waa cafi wallahi ma sheegi karo balse isku leeyihiin gaar maya aqoon inay isku leeyihiin ma hubo balse uma maleynayo inay aqoon isku leeyihiin marka si wanaag niyad wanaag ku leeyahay niyad wanaag laakiin ninkii maadaama uu madax yahay ninkii uu ka shaqeeyay marka ka horeedana waxa maqlay fiidiyowga koowaad oo la iga duubay inay kuwan oo madaxtooyada joogan inay ka soo hadleen sababta fiidiyowgaas loo deeyay maxaa waaye ee dhaheen dood ka keeneen TV iga duubtay ee dhaheen wiilasha wariyaasha la hadlay marka aniga ila hadleen ay dhaheen saas ay dhaheen maxaa gabadhan dhibaataysan ee dhibkeeda sheeganaysa loo sii daayay yiraahdeen fiidiyowgaas anaga nagala tashan maxaa loo sii daayay oo naloo ceebeena calashaan saasay dhaheen qolada madaxtooyada ayaa kula soo hadleen qolada madaxtooyada dhaheen wariyaasha la hadleen aniga wariyaasha marka saas ugu dhaheen marka waxa is dhahay gudoomiyaha wuxuu saa ku dhahay ereygaas hore aad maqashay ay kan isku miisaan marka adigu dhib gaaray hadasho kadib ay dawladdu kula soo xiriirtay ku caawis marka hadla kadib dawladda ay caawiday oo codsiga ku dhistay marka waxay dhibsadeen hadalkaagii
saasay ila tahay ku gaaray uu ku gaarsiiyay askari waayo wuxuu meeshuu joogo ka shaqeynayo waa meeshii madaxdii dhameed iskugu tagtay way joogto ninkan wali waa sii shaqeynaya ninkan wali waa sii shaqeynaya maxaa dareemay ka cadaalad ahaan ma heshay cadaalad u baahnayd haddaad xitaa cafiso ninka waxay ahayd inuu cadaalada maro dawladda waa gooni aad waa cafin kartaa laakiin dawladdu ma cafin karto صح واي لكن dhibaatadan maanta geystay hadana dawladda ku dhex jiro u shaqeynayo walaa waa dhibaato waayo aniga mid ii geystay mid ka badan uu geysan karaa صح واي laakiin waxa rajeynaa inay iska dhex saari doonaan ugu dambeyn marka amaal ilaahay ku dhibiray xaaladda caafimaadka hadda meeshan Turkiga maxaad kala kulantay xaalka u siiyay والله الحمد لله balse rajada inta uu imaaday ee ahayd aan lugteeda inay ilaamato ay fidsanto ay ahayd maana helin taas balse waxay dhahaan lugtaada biraha markii hore la soo galiyay ay kaaga ciyaaray oo macnaha waxyeelo badan u geystay waayo barne jilibka markii hore xabada igala baxsatay barka iga harana birihi iga dilay afishina qaade marka waxay dhahaan qaliin aan kugu sameeynaa hal jaanis haysata waana halkaas qaliin biraha laga saaraa jabkii oo macnaha ka haray jilibkana waa laga saaraa waayo lafta kale ka saameynaysa lugta iyadoo taagan 2 bil kadib oo ku soconaysa ilaa marka ma ka soco xanuunka ka war ma ka seexataa la habeenka xanuun baabiya una habeen alxamdulillah ilaahay uu karkaaray waxa ay sheegtay hooyada inaad ku weyday qaraxyada ka dhacay wadanka صح 2016 ahayd bish 9 dabadeeda ya hooyo nooga dhimatay maxaa ku dhacay hooyo subaxdii horta qof waxay ahayd ilmaheeda u shaqeysanayso oo ilmaheeda u soo shaqo tagtay waxay soo bixi jirtay gurigeeda ka soo tagi jirtay 9 saac habeenimo anaa la shaqeyn jiray 9 saac habeenimo ka soo tagayna guriga shaqada waxaan la ku tagi jirnay ilaa waxaan soo jirnay 12 salaada iyadoo la galay ama laga baxay aan tagi jirnay meesha ilaa maalintii oo dhan ka shaqeysan jirnay marka ciidana meesha imaan jiray oo ka cunteyn jiray qaraxiya loogu duubay subaxdii dambe markay soo dheelmatay subax khamiis ay ahayd taariikhdana xaq beegneed 2016 ahayd bish 9 dabadeeda markay imaatay shaqadeeda soo shaqo gashay adi halka saac subaxnimo xilliga quraacda marka la joogo oo qaraxi dhacay dad badan oo ku dhinteen oo ku dhaawacmeen hooyada anigana ku jirtay dadkii meesha ku dhintay ku jirtay ilaa naxariista hadda maxaad isleedahay iyaad isleedahay waxbay kula qaban karaan aad jeclaan lahayd inuu codkaaga gaaro wallaahi Soomaali maxamed oo dhan meel walba joogaan inay ii dadaalaan inta karaankooda wax ii qabtaan rajeynaa insha Allah ina soo duceeyaan ilaahay caafimaad degdeg ah ku siiyo amaal maxamed maxamuud ayaa ahayd oo aan kula kulmay magaalada Istanbul wadanka Turkiga oo waraysigan gaarka aan ka qaadnay intaynu mar kale kulmi doono aniga iyada waxaan ku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo cidi doonaysa inay caawiso hadduu Allah awood u ogolaado waxay nambarkeeda tooska ka heli kartaa qaybta hoose ee shaashada nabadgelyo Soomaalida u hiilisay hanolaato